sheekh maxamed umal caafimaad ilaahay hasiiyo subxaanahu wa tacaala. waa kaafir laakiin inuu dil mutaystoo la dilayo hadal kama taagin. ilaahay calaamad degdeg ah ka muujiyo. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu gurigiisa ku sameyn jiray markuu gurigiisa joogo muxuu sameyn jiray yafli thawbahu maradiisu injirta ka guran jiray. khulaasada inoo soo baxday maxay tahay? khulaasada inoo soo baxday waxa weeyaan axaadiis ku sugan nabiga sallallahu alayhi wasallam madaxiisana in laga baari jiray injirta lagana guri jiray, timihiisana isaguba ka guran jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. iyo culimada waxaan u jeedaa maradiisana isagu ka guran jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. nabiga gurigiisa ka areeganaya salawaatu rabbi wa salaamu alayhi, shaqadiisa qabsanaya, ariga maalaya, muxuu ahay injirta maradiisa ka guranaya. arintaasi nabi maxamed ba khaas kuma ahayn. injiri inay gashaay nabiyadii kale ay gali jirtay. mas'alada nabi maxamed nuur buu ka samaysnaa waa khuraafo. nabigu wuxuu yimid dad reer ama dad meel degan meeshay qashinka ku shubtaan oo ku daadiyaan buu soo istaagay. markaasuu isagoo taagan nabigu kaajay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. nin taagnida ku kaajayo ku kaleedhinaya Soomaalidu maxay u taqaan? gaal bay u taqaan. nabi maxamedna kama fi sahihayn bukhari iyo muslim ugu yaala nabi maxamedna isagoo taagan ayuu kaajay. waa kaafir waxaana waajiba in la dilo. waa gaal haddana waa la dilayaa, riddatan baa loo dilayaa. hadduu toobad keenu yidhaahdo caydii nebiga waa ka toobad keenay waa la dilayaa. maxaa yeelay xaqa nebiga annaga ma ridi karno calayhi salaatu wasalaam. xaqa nebiga mar walba waata xaqa nebiga cafi kara calayhi salaatu wasalaam. maantana nebiga ma joogo, maadaama rasuulka uusan joogin calayhi salaatu wasalaam annaga xaqiisa ma cafi karno, qofkaasi in la dilo weyn. waa inaan ogaanaa nebiga sala allahu calayhi wasalam arrinkaasi inuu ku yahay tacni iyo cayn nebiga la caayay iyo dhibid nebiga la dhibay iyo aflagaada nebiyullaahi muxamed loo geysta sala allahu calayhi wasalam. oo ku fiirsan ama aan difaacno ama commentaan ugu qoran dhalinyarada intabihu waxaan u jeeday social media dhalinyaro taageersana wax u qorayso gacantaada wax ku qoraysa nabi maxamed baa lagu caayay markaas ayeen gacantaada aad ku taageeraysaa oo wax u qoraysaa iyaaka wa iyaaka intabi. أجمع العلماء waxay isku raaceen على أن شاتم الرسول رسولك الروح عاية كافر وقال يا هاي روح أسقى نبي محمد صلوات ربي والسلام عليه روح عاية وحكشة وحكمه عند الأمة أمة المسلمين تحكم كونينك كهلي وكم ضيع وحاوي القتل إن لدله وقال وإن لدله ومن شك روحي كشك يا في كفره قال يا هاي وعذابه إن العذاب والنار كواره كفر أسقى قالوا بي. فضلا هدي أن نقع صبتها الجنة كان سبسكرايب صار لايك صار وحينوتها دير قلين واتقوم سنتهاي داوشة مغالدين. محمد عبدي أمال ayaa qaliin ku galay magaaladaasi New Delhi ee dalkaasi Hindiya. qaliinkan ayaa la sheegay inuu uu umal ka maray dhanka dhabarka iyadoo wararka la sheegayaan inuu ka maray dhanka kilida oo dhibaatooyin badan kala kulmayay sanadihii u dambeeyay. wararka khilaafan ayaana ka soo baxaya meesha qaliinka looga suubiyay inay tahay kilida iyo inay tahay dhabarka. nin taagnida ku kaajayo ku kaleedhinaya Soomaalidu maxay u taqaan? gaal bay u taqaan. nabi maxamedna kama fi sahihayn bukhari iyo muslim ugu yaala nabi maxamedna isagoo taagan ayuu kaajay. waa inaan ogaanaa nebiga sala allahu calayhi wasalam arrinkaasi inuu ku yahay tacni iyo cayn nebiga la caayay iyo dhibid nebiga la dhibay iyo aflagaada nebiyullaahi muxamed loo geysta sala allahu calayhi wasalam. ilaahay wuxuu leeyahay إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. كو إلهي يا رسولك يصدبها هيا إلهي واللعنة ضي أدونك يا آخرة وملعونين عذاب إهانة يؤد لينا إلهي وأد ياري سبحانه وتعالى. إلهي وحل والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. كو رسولك إلهي دبيا وحي ليهم عذاب كل أوجب أي لي. أرنكاسي وحو كل منيا وحكستو أو دبيد أو النبي قال له جيستو أو طعني كوا إيا ضرد أو قول كاسو بحيا أو فعل كايمد أو عيئة أو وحلمد أو نقصامين أو دن وكفر.
muslimiintii hore iyo kuwa dambe salafan wa khalafan waxay ku ijmaaceen oo ku kulmeen qofka rasuulka dhiba oo caayo oo nuqsaamiya kaafir billaahi inuu yahay dilkiisuna inay tahay xatmi oo waajib ay tahay inay sufaha iyo waxaan waxba garanayn nabiga ay caayaan waxa uu dul qaadan kara maaha qofkii nabiga caayana hadduu 100 jeer shahaatana saacadaas iyada gaal way laakiin xukunkiisa muxuu yahay adduunyo kuma sii noolanahay waa in la dilo qofkii nabiga caay xukunkiisa waa kaas wax kale ma laha nabiga caydiisa waxa weeye khata cagaaran weeye qofkii galo ninka ugu dhawa madax ku dhufan axkaamta nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtigiisa dhacay oo ku fiirsan ama aan difaacna ama commentan ugu qoran dhalinyarada intabihu waxaan u jeeday social media dhalinyarada taageersada wax u qorayso gacantaada wax ku qoraysa nabi maxamed baa lagu caayay markaas aad gacantaada aad ku taageeraysaa oo wax u qoraysaa iyaaka wa iyaaka intabi muslimiinay soomaaliyay waxaad ogaataan ruuxii nabi maxamed wax ka sheegay ruuxii carab ku difaacow ruuxii qabiil ku difaacow ruuxii wasakhnimo ku difaacow ruuxii ruux ay isku mid yihiin oo isku doon saaran yihiin ku difaacow ruuxii jinsi dumar ahaan ama rag ahaan ku difaacow xukunka uu ruuxaasi qaadanaya ee gaalnimada riddada la wadaagaysa waxaan leeyahay ruux kasta oo nabi maxamed wax ka sheegay waa murtadiin la'aan haddii la dili karay ha la dilo haddii aan la dili karayninna adduunyada cidhiidhi ha ku galo meel kastaa ka xidhanto ilaahayna subxaana wa tacala waxaan baryanaynaa oon ka baryaynaa saacadahan oon ilaahay aad khayr uga rajaynayno waxaana rajaynayaa inaad aamiin ii tidhaahdaan ilaahay waxaan ka baryaynaa biismihi alcadam ilahay waxaan ka baryaynaa adduunka intuuna ka tegin in ur looga kala cararo wax aasana la waayo uqubo iyo ciqaab uuna filaynina adduunka alla ugu soo saaro taasaan ilahay ka baryaynaa gabdhihii nabi maxamed ku abtirsanayow ee saalixaadka ahaa raggii nabi maxamed ku abtirsanaya dhalinyartii waynakum wiilkii bakistan ayaa dhaweyta waad garanaysaa ninkii nabinimada sheegtay wiil yar baa intuu u soo galaa isagoo maxkamadda taagan dhafarada ku dhuftay sidaa darteed دورك يا كالنت النبي محمد دفاع عيد ونفتنا وين كوريسو ادخلوا على أم حرام بنت ملحان فتطعمه النبي صلى الله عليه وسلم أم حرام وهو إيمان شري قرقه وهو إيمان شري مركزي النبي عنتا وديارين جرتو عنتا قودين جرتي صلوات ربي وسلام عليه وحوليه هاي مال المالمها كم إذا النبي أتي صلى الله عليه وسلم النبي أويم صلى الله عليه وسلم وقرقه دي أويمت مركزا واحد باللوضي إن النبي صلى الله عليه وسلم تمها أوجها جاتشسو qashinka iyo cayayaanka timaha gala ay nabiga sallallahu alayhi wasallam uga hagaajiso ayay bilowday kana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam idha dhahaba ila quba nabigu markuu quba aado yadkhul wuxuu gali jiray soo salaam jiray ala ummi haram binti milhan radiyallahu ta'ala anha wa kanat waxay ahayd tahta ubadah ibn samit fadakhala alayha yawman ma maalmaha kamid nabigu u soo galay qabla an yatazawajaha ubadah way fa at'amadu nabiga raashin siisay وجلست ويفرستي تفلي إني مركا فلقينيس رأس مدح نبي أي باريس مر نبي نظيف وإنجيل ملهين لكن تمه بدن بولهانجر هذه انت تسريدي سؤال نقضاء كلام بحسوء تشليسو حقوق النفس بدريمسة استراحة دريمسة مركا استراحة يا الراحين رسولك يا النصيب لو جد جدم وين ملهين قشن يمحو هاي إنجيل منا بقى أوش نبي وكوفنا وين عضي قضية ضايعة فليق المركب جدد اللي بمعنى تفتش nabiga sallallahu alayhi wasallam tintiisi ayay baaraysay ayaa loola jeedaa laakiin wax la yiraaho qomle iyo injir iyo wasakh iyo nabigu waa ka fogaa ilaahana ka fogeeyay jalla jalaaluhu waxa sidaas oo kale shuraaxda kulligood ay ku sharxeen in ereygan ula jeedada laga leeyahay uu yahay tufatish ay baaraysay kitaabkan la yiraaho fathul muncim sharh sahih muslim markuu ereygan uu sharxayay wuxuu yiri ay tufatish wala yalzamu min dhalika wujudu alhawam baaridana kama dhalanayso yiri looma jeedo in injiru meesha laga helay ummi haram binti milhan tafliga ay sameeynayso baaraysay kama dhalanayso wujuudu alhawam waxyaalo injir iyo cayayaan iyo wasakh in meesha laga helay kama dhalanayso yiri nabigana waa ka nasahan yahay sallallahu alayhi wasallam baarak alayhi waxa ilaahaas kale marka yaani wadaadkan isagu ereygan sida qalloocan oo baadilka ku fasiray wuxuu ku kadsoomay oo khalad uu u fahmay markuu kutubta qaar uu ku arkay tafliid way baaraysay
maca daalikana kutubta shuraaxda ee sunanta iyo saxiixu muslimka iyo bukhaari shuraaxdooda waxay caddaynayaanba laa yalzamu min dalika wujuud اlhawaam baarid iyo wixii aan ka helay waa laba lafdi oo aad u kala fog oo sharqi iyo garbi kala jira wey waxbaa laga baaray qofkan iyo waxbaa laga helay sharqi iyo garbi laba erey oo kala jira wey markaasu wuxuu is yidhi uu ku fasiray waa isaga jeebkiisii waaba laga helayba farqigana u dhexeeya yacni taftiish iyo wujuud waa la baaray iyo waa laga helay ayuu wadaadku isku khalday marka waa la baaray iyo waa laga hadlay kutubtana waxaa weeye waxan waa la baaray adiga tusaale ahaan haddii meel jagboontii aad ku timaadid oo jagboontigaas lagu baaro oo inaad bumbo iyo side lagaa baaro haddii markaad jagboontigii ka soo tagtay wixii lagaa waayo qof uu ku yidhaaho maadaama lagu baaray bumbaad side qof walboo jagboontigaas soo maray bumbuu xambaarsanaa haddii lagu yidhaha ka war sawaali ma ah iyo kaafiya kala dheeri baarid iyo helid labay kala yihin laba cibaaro wey oo sharqi iyo qarbi kala jira qof walba markuu jagboontii soo ama gaariha wato ama keliga maro waa la baara soo maaha haddii kulligiin laydin yidhaaho bumbaad wadateen ka warrama maadaama jagboontii aad soo marteen warna ma helin baariddu ma tusinayso in bumbo laga helay aniga ma tusinayso macnaha marka culimmada muxadisiintu ay ku fasirayaan waa sida khaladka wadaadka waxa u keenana waa noocaas taftiishka iyo wujuudkii ayaa isaga khaldamay baaridii iyo waxbaa laga helay fii waqti rasuul calayhi الsalaatu wasalaam waqtigii nabiga alayh الslat slam waxaa dhacday nin indhoolaahu saxaabiya ayaa xaaskiisa dilay nabiga calayh الsalatu salaam khabarkii baa loo sheego waxaa la yidhi nin baa xaaskiisa dilay saxaabadii buu u khudbeeyey nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkaasi ha istaago ninkii indhoolahaa baa istaagay aniga waayo buu rasuulka ilaahay ninka xaaskiisa dilay uma dilin inaan necba bal waan jecla waxay ii dhashay buu yidhi laba wiil oo aada u qurxoon oo aan jecla laakiin waxaan u dilay buu yidhi habeen walba markaan guriga tago ayay waxay imaqashiisaa buu yidhi caydaada waxay ugu dhibtay in adiga ku cayso waan u adkaysan waayey sababtii baan ta qaatay ayaan kula taagsaday sidaasaana ku dila rasuulka ilaahayo nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi ka markhaati ahaada saxaabadii dhammaantood wuxuu u markhaati geliyey wuxuu yidhi ka markhaati noqda dhiiggeeda inuu hadar yah dhiiggeeda inuusan wax ka soo qaad lahayn ka markhaati ahaada qofkii nabiga calayh salatu wasalaam caayaa waa in la dilo sharcigu wuxuu qabaa in la dilo hadduu muslim ahaa ee rasuulka uu caayo sala allahu calayh wasalamna waa gaal haddana waa la dilayaa riddatan baa loo dilayaa hadduu toobad keenu yidhahdo caydii nebiga waa ka toobad keenay waa la dilayaa maxaa yeele xaqa nebiga annaga ma ridi karno calayhi salaatu wasalaam xaqa nebigu mar walba waata xaqa nebiga cafi kara calayhi salaatu wasalaam maantana nebiga ma joogo maadaama rasuulka uusan joogin calayhi salaatu wasalaam annaga xaqiisa ma cafi karno qofkaasi in la dilo wey nin la dhihi jiray ibnulkhatal oo rasuulka dhibay sala allahu calayhi wasalam laba gabdhooda u heesta oo addoomaada u lahaa markaasuu dhihi jiray nebiga heesa ka tiriyo caaya rasuulkay caayin jireen sala allahu calayh wasalam waxay yidhahdeen saxaabadii ninkii sidaa ahaa rasuulka ilaahayo kacbadii daaheedii ayuu ku dhegan yahay oo kacbadii buu magan galay maxaa la sameeyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi uqtuluuh dila haweeney nin indhoole ah si sunan ku sugan nin indhoole ah 5 curug iyo wax ka badan u haysay ayaa nabiga caayi jirtay ninkii indhoolaha uu dhageysta xadiidka waa taqaanaa bulug maraanka ku soo marteen kutubta yar qoran ku jira asxaabu sunna oo noqon karta nabiga ayaa caayi jirtay uu gagsan waayay maalin dambe toori buu raadsaday waa indhoola toori buu raadsaday habeenkii markay seexato caloosheeda gooyay haweeneydii baa la dilay waa la qeeliyay nabiga loo sheegay wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow waxay igu kaa dhibi jirtay oo igu ka caayi jirtay mar walba ay maqashin jirtay adigay ku caayi jirtay nabiga muxuu yidhi dhiiggeeda saasuu hadal ku noqday wax iswaraysada ma laha nin walaashii dilayna saasa sida xadiidka ku qor ninna walaashii buu saa ku dilay oo markuu nabiga aadam makii xumaa xaggiisaan aadi bay dhihi jirtay oo nabiga caayi jirtay ilaa uu madaxa seef madaxa kaga jaro nabiga markii loo sheegay wiilal waaweyn oo mujaahidiin oo rag waaweynna way lahayd oo dagaalamay nimankii baa qamaamay oo hooyadaana yaa dilay markaas waxaa leeyahay abtigiin baa dilay anaa dilo lahayn kaanat tu'dii bi
yanaha tu'dii bii bika rasuul ilaahi anigay adigu kaa dhibi jirtay oo mar kasta waxay dhihi jirtay markii xumaa xaggiisa la aadi saa daraaddeed baan u dilay nabiga dhiiggeeda hadir buu ka dhigay wiilashiina waxay dhaheen radiina haddayba nabi maxamed cayday raalli baan ku nahay in madax laga jaro in caadiya shaqada uu gurigiisa ka qabsaduu nebigu ka qaban jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh muxuu ahaa waxyaaluhu qaban jiray waxaa ka mid ah kaana yaflii thawbahu maradiisa ayuu injirta ka guri jiray baluu fiirsada ilahi baan idinku dhaariyey maradiisa ayuu injirta ka guran jiray hash yacni neefkiisa adhiga iyo ridiisana isagaa soo lisan jiro soo maali jiray naftiisana wuu u adeegi jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh saas xerada adhiguu gelayaa ridii ama laxdii buu lugta qabsanayaa wuu soo maalayaa soo lisanayaa kadibna gurigiisuu la imaanayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh u fiirso adhi baa la soo lisaya xoolaha isagaa soo lisan jira maradiisa isagaa injirta ka guran jira gudubkiisu wuxuu gaaray waddada uu maro in la dareemo la yidhaahdo waddadan nebi maxamed baa maray sallallahu calayhi wasallam qofka uu salaamo oo musaafixeeyo oo gacanta geliy maalintaasoo dhan uu unugeedii waa laga dareemayaa qof kasta oo ku salaamo ama qof kasta oo la kulmo carruurta yaryarka a markuu soo maro ee mid ka mida uu madaxa ka taabtana carruurta kale waa laga garanayaa waa axaadiis saxiixa intaba oo muslim iyo bukhaari iyo sunankaba ku sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasuu ahaa dhididkiisa ama jismigiisa ama sida uu ahaa caraftiisu noocaasay mas'alada annabi maxamed nuur buu ka samaysnaa waa khuraafo kelimadata nabigu nuur ma ahayna qur-aankaa caddaynaya inuu nabigu nuura qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin baa ilaahay fi suurati almaa-ida qad jaa'akum min allah ilaahay xaggiisa waxaa idinkaga yimid nuurun huwa muxamed sala allahu calayhi wasalam wa kitaabun mubiin kitaab cadla xaqa iyo baatilka kala caddaynayana ilaahay baa idiin soo dejiyey imaamu aaluusi imaamka la yidhaahdo kitaabkiisa ruuxu macaaniga markuu aayadda fasirayo sidaasuu ku fasiraya yaflii thawbahu maradiisuu injirta ka guran jiray khulaasada inoo soo baxday maxay tahay khulaasada inoo soo baxday waxa weeyaan axaadiis ku sugan nebiga sal alla lay wasalam madaxiisana in laga baadhi jiray injirta lagana guri jiray timihiisana isaguba ka guran jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo culimmada waxaan u jeedaa maradiisana isagu ka guran jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh injir buu nabigu lahaa wax kelimo qof islaam oo qalbigiisa iimaan ku jiro uu dhihi karo nebi maxamed baa injir lahaa sala allahu calayhi wasalam ma ka suuroobaysa sidaan anigu aaminsana qof qalbigiisa iimaan ku jiro injir laba arrimood bay leedahay mid waa midda koobaadee injir wasaq bay ka dhalata waa wada ogna meel aan wasaq lahayn injir ma yeelato oo injir gebigeedaba wasaqda unbay ka imaataa ee qof qabaystay mayrtay wax cafwan ismariyey isnadiifiyey injir ma u imaan karto injirtu wasaqday ka dhalata qofku markuu qabaysan waayo dhididkiisa uu la joogo uu ku daaho ayay injirtu ka dhalan karta waa mid tan labaad injirtu waa naqsi nusqaan meesha ugu xun wey oo dadkan caadiga qofka ka mid a haddii la yidhaahdo injir baad leedahay qof ogolaanaya ma jiro waa naqsi meesha ugu xun wey marka nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo udubgiisi iyo caraftiisi iyo dhididkiisu ay sidaa ahayd horta injir uma imaanayso iyo wax la mid a jirkiisuna wasaq ma yeelanayo tan labaad nusqaan in nabi maxamed calayhi salaam aad tanqiisisood injir ku sheegta labaduba waxay keenaysaa gaalnimo waxa ugu yar ee tanqiiska aqalu qaliil ama adnaa qaliil waxa ugu yar ee tanqiisa wax yaree nusqaan haddaa nabi ogeyso
aimadu waxay leeyihiin hadduu qofku yidhaahdo rasuulka maradiisu wasaq bay lahay injil maaha maradiisu wasaq bay lahay meel baa wasaq kaga taala maradiisaa wasaq lahay waa tanqiis gaalnimay keenaysa nabi maxamed baa injil lahaa iska lahaa sala allahu calayhi wasalam kelimada xukunkeeda isku soo duubo xukunkeedu waa gaalnimo qofkii nabi maxamed baa injil lahaa diinta islaamka uu ka baxa xukunkiisuna waa alqatlu waxaa la yidhahdaa qofkii nabiga tanqiisiyo diinta uu ka bixi toobadna male xataa hadduu soo noqdo toobad male xukunkiisu waa dil in la dila wuu gaaloobay xaasasku way ka furmeen wax islaama salaadu kama ansaxayso laguma daba tukan karo waa mushrik diinta islaamka ka baxay toobadna male waajibkiisuna in la dila wallahu aclam